Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Asxaabta ku xiran janaalka marka la soo dhawaada ay galayaan siyaasado cusub oo isbedel lagu sameeyay oo la xiriira dadka safraya. Haddaba siyaasadaasi maxay tahay ilaa iyo intee ayayna soo jirtay, maxaana sababay markeedii horeba in siyaasadaasi la dhaqan geliyo? Waan idinla wadaagaya arrintaasi. Dadkii rajo ka qabay in qaxooti ahaan ay Mareykanka ku imaadaan amaba group 5 ahaan, arrintaasi waa ay dhammaatay. Haddii aad rajo ka qabtay, maxay tahay tallaabada ay qaaday wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanka oo rajadaasi meesha ka saartay qaxooti ahaan ama group 5 Mareykanka? Qofkii rajaynayay inuu ku yimaado gabi ahaanba meesha ka saaraysa. Tallaabadaasi maxay tahay wasaaradda arrimaha dibadda ay qaadana? Sidoo kale waan idinla wadaagaya. Mareykanka iyo guud ahaan caalamkaba dadka safraya ee raboorada marka ay ka safrayaan, waxaa jira siyaasado kala duwan oo ay tahay in ay maraan marka baaritaanka lagu sameynayo ka hor inta aysan diyaaradda raacin. Siyaasadahaasi waxaa ka mid ah in dadka kabaha laga siibo oo sokiskooda oo keliya ama sigsaantooda ay meesha ku maraan, amaba haddii ay kaba obina wataan xitaa iyagoo cagacad ay dhex maraan mashiinka X-ray-ga ah, markaasi kadibna laga baaro in waxyaabo qarxa ay wataan. Haddaba siyaasadii kabaha la iska siibayay ayaa gabi ahaanba raboorada Mareykanka laga joojiyay laga soo bilaabo Talaadadii la soo dhaafay, oo inta badan raboorada hadda 4 maalmood oo la soo dhaafay ay dhaqan geliyeen, laakiin maalinta beriya oo Axada ayay si rasmi ah u dhaqan galaysaa. Siyaasadaasi wasaaradda amniga gudaha haweeneyda madaxda ka ay la yiraahdo Kristi Noem waxay sheegtay inay yareyn doonto sugitaankii ama laynkii faraha badnaa oo dadka inay kabaha iska siibaan kadibna ay dhex maraan mashiinkaasi in ay yareynayso, walow ay jiraan siyaasado kale oo jiri doona kuwaasi oo ay tahay in sidii loo mari jiray loo maro. Hay'adda TSA-da waxa ay laga soo gaabiyaa Transportation Security Administration, waa ciidamada shaatiga buluuga ah iyo sarwaalka madowga ah wata ee dadka baara marka ay airportka checkpoint-ga ay marayaan ka hor inta meesha diyaaradda lagu sugayo aysan tagin, waxaana ay hoos tagtaa wasaaradda amniga gudaha. Haddaba wasaaradda amniga gudaha goorma ayaa la sameeyay, maxayse ahayd sababta loo sameeyay? Weeraradii September 11 sanadkii 2001 markii lagu qaaday Mareykanka lagu soo qaaday gaar ahaan New York Twin Towerskii, weeraradii argagixiso ayaa waxaa dhashay sharci la yiraahdo Homeland Security Act oo sanadkii 2002 uu Congress-ku uu meel mariyay. Wasaaradda amniga gudaha waxaa la sameeyay bishii November 25 sanadkii 2002. Marka waxaa la sameeyay hal sano ku dhawaad kadib markii weeraradaasi argagixisada ay dhaceen, waxaana muhiimadeedu ay tahay oo loogu talagalay inay ilaaliso shacabka Mareykanka oo weeraro noocaasi oo kale ah ay ka ilaaliso kuwii September 11 sanadkii 2001 dhacay. Wasaaradda amniga gudaha waxaa hoos yimaada in ka badan 9 hay-adood ayaa hoos yimaada oo waaweyn oo wasaaradda amniga gudaha ay maamushaa. Waxaa ka mid ah ciidamada xuduudaha ilaaliya ee CBP loo soo gaabiyo, ciidamadan dadka dambiilayaasha iyo dadka sharci darrada hadda wadanka ka qabqabanaya ee ICE la yiraahdo. Waxaa sidoo kale in hoos yimaada ciidamada ilaalada xeebaha. Waxaa sidoo kale hoos yimaada hay'adan hadda aan idiin sheegay ee la yiraahdo TSA oo Transportation Security Administration-ka. Waxaa sidoo kale hoos timaada hay'adda maareynta masiibooyinka ee FEMA loo soo gaabiyo. Sidoo kalena waxaa hoos timaada hay'adda sidoo kale qaabilshan Cyber Security and Infrastructure Security Agency oo CISA loo soo gaabiyo. Waxaa sidoo kale hoos timaada Federal Law Enforcement in hay'adan la yiraahdo oo sidoo kalena iyadana loo soo gaabiyo FLETC loo soo gaabiyo, iyo hay'ado kale oo ay ka mid tahay Federal Protection Services. Hay'adahaasi dhammaan waxay hoos yimaadaan wasaaradda amniga gudaha. Marka wasaaraddaasina waxaa la sameeyay weeraradii 2001 sanad kadib Congress-ka sharci ay meel mariyeen oo lagu dhisay. Marka haweeneyda madaxda ka ah Kristi Noem ayaa Talaadadii ku dhawaaqday siyaasadii kabaha la iska siibayay inaysan jiri doonin. Qofka hadda kadib kabihiisa soo wato ayaa qaybta baaritaanka ama mashiinka X-ray-ga uu dhex mari doonaa. Sababtuna waxay tahay tiknoolajiyadii inay casri noqotay oo hadda waxyaabaha qarxa mashiinkaasi X-ray-ga oo aad dhex maraysa haddii aad wadato lagugu ogaan karo. Haddaba siyaasadan goorma ayaa la soo rogay marka in kabaha qofka laga siibo marka airport security-ga uu marayo? Waxaa jirtay in nin wadanka
Britain u dhashay oo magaciisa la yiraahdo Richard Reed oo kabihiisa waxyaabo qarxa uu ku soo qariyay bishii December sanadkii 2001 ku dhawaad 3 bilood kadib weeraradii argagixiso ee New York markii ay dhaceen September 11 sanadkii 2001 ninkan marka diyaarad ka soo baxday Paris oo Miami Florida u soo socotay ayuu soo raacay waxaana mid kamid ah shaqaalihii diyaaradda u arkay ninkan oo doonaya kabihiisa taraq oo watay inuu ku shido markaas kadib ma aysan qarxin kabihiisa waad aragtaan ninkan magaciisa Richard Reed sawirkiisa waa kaasa waa la qabtay markaas kadib waa la xiray haddana waxa uu ku jiraa xabsi daa'in ayaa lagu xukumo xabsi ku yaala Colorado ayuu ku jiraa xabsigaas waa xabsiyada ugu adag ee Mareykanka ah waxa jirta sidoo kale 2009 nin kale inuu isku dayay in isaguna underwearkiisa ama hoosgashigiisa waxyaabo qarxa uu soo geliyo laakiin uu ku guul dareystay markaas kadib marka ayaa siyaasadan in kabaha la iska siibaha la dhaqan geliyay ilaa iyo markiina waa ay jirtay marka siyaasadan in kabaha la iska siibo ee raboorada waxaa si rasmi ah loo dhaqan geliyay bishii Agosto ee sanadkii 2006 19 sano ayaana ay jirtay in siyaasadaasi marka hadda gabi ahaanba ee raboorada Mareykanka waa la soo gabagabeeyay ma jiri doonto iyadoo sidoo kale wasiirka amniga gudaha Kristen Noem ay sheegtay in siyaasado kale ay doonayaan in isbedel ay ku sameeyaan laakiin faahfaahin ma aysan ka bixin siyaasadaha kale ee jiri doona waxa kamid ah qofku marka airportka uu dhex marayo suunkii sidii ayuu isaga siibi doonaa jaakadiisa uu iska siibi doonaa laptopkiisa sidoo kalena meeshii la gelinay ayuu gelin doonaa iyo sidoo kale qaar kamid ah waxyaabaha dareeraha qofku hadii uu wato sidoo kalena hadii 3.4 ounces ay ka badan yihiin ama 100 ml hadii ay ka badan yihiin waa qofkaasi waxa macnaheedu tahay in laga qaadi doono waxyaabahaas marka siyaasadahaasi waxay wasiirka amniga gudaha ay sheegtay in ay dib u eegis ay ku sameyn doonaan laakiin ma aysan sheegin siyaasadaha ay doonayso in meesha laga saaro marka siyaasadihii kabaha la iska siibay ee raboorada Mareykanka gabi ahaanba hadda kadib ma jiri doonaan arintaasi hadii halkaasi aan kaga gudbo maxay tahay talaabada ay qaaday wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanka oo dadkii rajo ka qabay in Mareykanka qaxooti ahaan ay ku yimaadaan ama group 5 ha noqoto ama qaxootiga caadiga ha noqoto gabi ahaanba rajadaasi meesha ka saaraysa maxkamadda sare ayaa maamulka Trump waxay u ogolaatay in shaqaalaha federaalka ah intii uu doono uu shaqada uu ka ceerin karo haddaba wasaaradda arrimaha dibadda ayaa waxa ay ku dhawaaqday in shaqaale ka badan ilaa iyo 1300 oo qof in gabi ahaanba shaqada laga ceeriyo shaqaalahaasi waxa ay quseynayeen ama shaqada ay qabanayeen waxa ay quseynaysay in la ilaaliyo xuquuqda aadanaha ee guud ahaan caalamka iyo in dib loo qaado dimuqraadiyadda sidoo kalena waxa ku jira arintan waa arinta qaxootiga quseynaysa in shaqaalihii qaabilsanaa dib u dejinta qaxootiga marka shaqaalihii Mareykanka ee wadamada kala duwan joogay ee qaabilsanaa dib u dejinta qaxootiga gabi ahaanba meesha ayaa laga saaray iyo waliba dhinaca immigrationka safaaradihiina shaqaalihii waa laga yareeyay sidoo kalena dib u dejinta hay'adda United Refugee Agency programka oo la yiraahdo USAID loo soo gaabiyo shaqaalihii gabi ahaanba meesha waa laga saaray marka shaqaalaha federaalka ah ee shaqada laga ceeriyay waxa ay leeyihiin ilaa iyo 1,107 qof oo shaqaalaha madaniga ah iyo 246 kamid ah shaqaalihii wadamada dibadda joogay marka 246daasi waa shaqaalihii dhinaca immigrationka ama safaaradaha ama qunsuliyadaha joogay iyo kuwii dib u dejinta qaabilsanaa marka arintaasi waxay meesha ka saaraysaa rajadii dadka qaxootiga ay qabeen in inta Trump uu joogo waxa muuqata inuusan doonin hal qof oo qaxootiga inuu keeno dadka group 5 lacagaha bangiyada ugu jireen waa anigii hore idinku sheegay oo lacagihiina goobtaasi kala baxa haddana waa markii ugu dambeysay sida muuqata rajadii qaxootinimo ama group 5 Trump gabi ahaanba waa uu dilay meeshana waa uu ka saaray inta uu joogo ma u malaynayo in qofna qaxooti ahaan uu ku imaanayo ama group 5 ahaan uu ku imaanayo dhinacii viisayaasha waa macquul inay jiraan walba shaqaalaha hadda la yareynayo aad aragtaan safaaradihii arintaasina dib u dhac weyn uu ku imaan karo oo laga yaabo dad fara badan inaan la keenin dadkii viisayaasha ama isqabay ama isdhalay ama waalidiin ahaa waa caadi waa la keeni karaa laakiin ayadana dib u dhac ayaa ku imaan karo marka la eego baaxadda shaqaalahan shaqada
wasaaraddu ay ka joojisay. Marka waxaan ogeyn horaantii sanadkan sidoo kale in waraaq ay wasaaradda arrimaha dibadda ay Congress-ka u dirtay hay'adda USAID gabi ahaanba waa tii meesha laga saaray oo gargaarka gaarsiin jirtay wadamada caalamka ilaa iyo 18,000 oo shaqaale ka badan ayaana horaantii sanadkan shaqada laga ceeriyay oo ilaa iyo 1,500 oo kamid ah si mutadawacnimaha waraaqa loogu diray oo la yiri shaqada waa inaad ka tagtaan oo iyagu si mutadawacnimaha shaqada uga tagay. Marka arrintaasina xisbiga dimuqraadiga aad ay uga qaylinayeen waxay dhahayeen shaqadii wasaaradda arrimaha dibadda ay guud ahaan caalamka ka haysay arrintaasi caqabad ayay ku noqon kartaa laakiin Trump maamulkiisa waa uu go'aansaday oo shaqaalahaasi gabi ahaanba shaqada waa laga ceeriyay. Shalay waxaa la arkayay iyagoo bokisyadoodii waxyaabihii muhiimka ugu jireen kala soo baxaya wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanka. qaarkood waa ay ilimeynayeen, qaarkood waa isweydiinayeen war adiga ma ku saameysay aniga ima saameynin, way isku tacsiyadeynayeen shaqaalaha qaarkood iyagoo ilimeynaya ayaa xitaa la arkayay maadaama shaqadoodii ay lumiyeen. qofkaasina waa meeshii inkamka uu ka soo galaya waxay noqonaysaa hadda kadib in uu shaqo kala raadsado. marka arrintaasina waan rabay inaan idinla socodsiiyo. aad iyo aad waa mahadsantiin asxaabta. intaan mar kale kulmi doono waa saaxiibkiin Cilmi Waaro idinla sidaa iyo nabadgelyo.